محمود حسن BBC كسدو Somali American Media marka hore waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dilkii dhacay ee loo geystay ninkii George Floyd oo kamid ah bulshada madow ee Mareykanka kadibna waxa dhacay qalalaaso badan oo Minneapolis ka dhacay arrimahaas sidee loo arkaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمود الدين وما سنتهاي Somali American Media إن مانتي مرتوها استوديو هذا مينيابوليس runtii waxaa sharaf ah inaan caawo ka hadlo barnaamijkan adduunka oo dhan gilgilay oo ah dilka soo sheegtay George Floyd waxa uu ahaa nin madow oo degan magaalada San Luis kadibna maalintii Isniinta ahayd oo ahayd 25 bisha ayaa waxa lagu dilay koonfurta magaalada Minneapolis kadib markii dilkaas uu noqday mid dadku ay la yaabeen oo ay soo xasuusteen waagi slavery-ga ama gumaysiga uu jiray qof bilow aadan oo dhulka la dhigay oo tunka iyadoo cag looga hayo suxulkiisa uu ku dhintay waxa jilibka uu hayo arintaas waxay noqotay wax aad looga naxo oo xataa aan ku jirin bilow aadanimada mana ahayn procedure-kii booliska wuxuu ahaa kii dalka raba inuu badbaadiyo ummadda ay ku cararaan taas waxay ka yaabisay Mareykanka oo dhan waana tan keentay maantay oo aan kula hadlay oo sabtiya 38 state oo Mareykanka inuu banaan bixi ka socdo waxaan ognahay dhibaatooyinkii ka dhacay markii la dilay Monday-dii talaadadii banaan bixi bilowday ilaa hadda maanta socda waxa lagu gubay bisnisyo badan waxa la xiray shaqooyinkii waxa magaalada oo dhan bandow ah waxa ognahay in maalintii hadda jamcihii la keenay National Guard marka runtii xaaladiisu waxay noqotay mid aad iyo aad muxuu ahaa dadku dhan awla yaabaan balse inta banaan bixi u socday talaadadii ilaa Friday-dii dadku waxay dalbanayeen in la soo xiro afartii askari balse xaakimka degmada Hennepin County Mike Freeman waxa uu ku dhawaaqay in askarigii dilay George Floyd oo koowaad in xabsiga la dhigo kadibna wuxuu ku xukumay 10 degree murder waa gaari doonaa waxaan jeclahay BBC ganacsiyada burburay ee la burburiyay iyo qalaasaha dhacay laftirkooda inaad ka hadasho horta ganacsiyada meelaha aadka xooga u saameeyay waa labada magaalo mataanaha ah waa Minneapolis iyo St. Paul ganacsiga marka laba qaybood bay noqdeen Maxamuud qayb la bilaqaystay iyo qayb la xiray oo laga cararay wax ganacsiga oo hadda dukaamadii caadiga ah oo taqaanay haday yihiin makhaayado haday yihiin Walgreens haday yihiin Carrefour haday yihiin Target every business oo ku yaalay Minneapolis shutdown way caaw meel wax kale isma jirto today gartay laakiin guud ahaan waa sidaas qaybaha Soomaalida sidee wax u gaaray Soomaalida laftigeeda waxa gaaray damage oo waxay kamid yihiin businessyada magaalada ku yaalay kamid yihiin Soomaalidu waxa loo geystay billo sidoo kale loo geystay waa la xiray haddii hadda aad marto meelaha Mareykanka geeyay markay dhibaato dhacdo every business waxa lagu xasafiito inta badan waa taqaana business dhan ku wax u badnaayeen dhalooyinka muraadahooda business walba oo maanta ku yaala Minneapolis St. Paul iyo gobolka Minnesota meelihii muhiimka ah waxa ku wada xiran safiito calaamadaas waxa ku tusay meel geeyta oo laga qaxay oo laga guuray oo cidna ayna socon runtii magaalada waxa moodaa inay tahay meel illa waa saa u tahay maalintii jimcaha waxa soo baxay go'aan ah in 8 PM oo la subiyo bandowga xalay oo bandowgii uu jiro waxa dhacay in la gubo dhinaca Southka Wells Fargo Bank oo u dhow suuqa weyn ee Soomaalida Caramel ay ku leedahay farmashi waxa la bilqaystay Banaadir farmashi oo Soomaali u lahaa guriga kale la gubay waxa la gubay Walgreens-ki dukaamo kale dib loo geystay waxaan ognahay in Caramel xalay la isku day laftiisa in la gubo balse Somali security oo ilaalinaysay ay difaaceen waxba ay rideen marka runtii waxa garan kartaa damage uu leeyahay waxyaabo badan baa dhacay xariga dhacay ninkii dilay ninka waa la dilay waa xabsiga la geeyay waa la xiray marka ninkii la xiray kadib maxaa isbedelay dadku isbedel bay rabaan wax isbedel hadda ma jiro xiritaanka ninka dadku ay leeyihiin waa in la soo xiray askartii kale balse wixii foodadii bilaabatay baa ilaa hadda socota National Guard-ka oo hadda yimi waa ilaa 500 oo askari waxayna ku shaqeynayaan procedure gooni ah wax ka marqada National Guard-ka oo iyagu police ma waa peacekeeping way iyagu kali waxay in xasiliyaan oo ay soo celiyaan law and order-kii waxa kale lagu soo badiyay ciidan kale oo state trooper oo state-ku u leeyahay kuwa kale oo federal la sugay marka waxa moodaa in Mareykanka oo dhan indhaha uu ku hayo Minneapolis sababtoo ah waxaan ognahay waxa ka hadlay madaxweynaha xataa haddaan ka hadlo dhinaca baaritaankan si wada jir waxa u galaya hay'adda FBI-da Department of Justice wasaaradda cadaaladda Mareykanka State of Minnesota iyo degmada Hennepin County marka runtii taas waxay kiis ku soo culisay kiiskan oo kale taariikhda Mareykanka runtii waxa uu ka dhacay 1992 magaalada Los Angeles oo ilaa 6 qof ku dhimatay dukaamada baa la bilqaystay marka laakiin arrintan waxay ahayd arrin aad uga duwan wixii hore dhan gartay go'aanka dabcan ay soo saareen مثلا mayorka iyo governorka iyo ayaga la tirado go'aamadaas muxuu wax ka bedelayaa marka la fiirsho dhinaca iyagu hadda qorshaha wax u soo saareen amniga
iyo waxa marka koowaad inay ku guuleystaan in horta loo orderkii la soo celiyo balaas inuu dhaqan gala bandowga waxaan ognahay xalay bandowga la soo saaray ma dhaqan galin dadku wala soconayeen marka waxaan sugaynaa caawo in la enforce gareeyo bandowga inuu noqdo mid dadku ay xaroodaan gartay ugu dambeyntii dadka Soomaaliyeed ku daawanayo maxaad kula dardaarmi lahayd maadaama aad tahay qof oo activist oo ama arrimahooda ka warqabo dadka Soomaaliyeed horta marka waxaan ku darmayaa midda koowaad in xilliga bandowgu yahay guryahooda aadaan labo inay islaaliyaan haday goobo ganacsi joogaan ay yihiin dad iyagu islaalo iska warqaba in mataqaana ay ka fogaadaan meelaha banaanbaxyadu ay ka jiraan sababtoo waxa laga yaabaa banaanbaxyada in fawda ay timaado oo ama wax la bilqaysta ama dhibaato kale ay ka timaado banaanbaxyada runtii ha laga qayb galo banaanbaxa oo fiican yahay laakiin banaanbaxa peacefulka ah baa fiican haddii ay noqoto banaanbaxu mid bilqaa hadhow dhibaato noqonaysa anaga Soomaaliyan ahay muslimaan ahay hadda bilqadii dhacaysay qaybaan ka noqon waxyaabaha runtii anagoo calaamadihii qabna islaamka oo gabdhaheeni ajlabaab qabaan oo wiilasheeni marka runtii bilqadu wax aad xun diin ahaan ibada wax xun waaye marka bilqada iyo rabshada aan laga qayb galin aan ka qayb galno dhinaca wanaaga ah banaanbaxa nabadgelyada ah oo aan xaq ku doonayno George Floyd iyo qof walba oo bilo aadan intaan ka bixin runtii waxaan rabaa inaan tacsiyo dhamaan qoyskii uu George Floyd oo runtii ay hadda joogaan oo karka tifiyada wax aad xun weeye waa geeri naxdin la oo ku timi qof walba oo bilo aadan oo uga tacsiyayna anoo ku hadlay on behalf African American leaders iyo Somali community ba labadaba mahadsanid BBC thank you